kusoo qayb kaloo ka mid ah sheekooyinkeenii taxanaha ay ka dhageysan jirteen raadiyaha sheekaduna dhaaruray waa sheekadii lixaad sheekooyinkeena taxanaha inta badan aad kala socotaan raadiyoga ayaa caruuray hadday idin dhaafaan waxaa sidoo kale mar kale ka dhageysan kartaan boggaanu ku leenahay YouTube ee dhalaan koriye sheekaduna waxay ku saabsan tahay caruuray lax iyo toddoba caruura oo ay dhashay aan idhaahdeen laxdu caruur ma dhashay waxaa la yidhahdaa maqal ama naylo waa dhasha arigu dhalo kuwada yaryar sheekadan ayaad haddaba kaga bogan doontaan qiso runtii xikmadii ku dheehan tahay kusoo dhawaada barnaamijkeenii sheekada raadiyoga caruuray meel kastoo aad joogtaanna waxaan idin leeyahay maalin wanaagsan waxaa la yidhi beri hore ayaa waxaa caruuray jirtay lax leh 7 maqala maalin maalmaha ka mida ayay laxdani bannaanka u saartay caruurteeda ama maqasha ay dhashay waxaana runtii ahayd mid jecel caruurteeda sida hooyo kastaaba ay u jeceshahay caruurteeda bannaanka ayay ku ciyaarsiisay oo waxay geysay daaqsin qurxoon biyuhu hareera socdaan sidoo kalena leh doog iyo caws ay ka dhigaan maantii oo dhan ayay ciyaarayeen maqashii yaraa ilaa ay ka haageen ciyaartii oo ay noqdeen kuwa faraxsan hooyadoodna waxay ahayd ku ildoogsanaysaa farxadda caruurteeda markii ay ciyaareen kadib ayay gurigooda ku soo xaraysay waxayna ku tidhi waa inaan hadda baxo oo aan aado kaymaha saan inooga doono cunto gaara oo in wada cunno waxaan sidii kula sii talinayaa in guriga aad joogtaan oo aydan albaabka cidnaba ka furin ciday doonto ha noqoto ciddii garaacdaaye waxay ku yidhahdeen haye hooyo cidna kama furi doono iyana way ku adkaysay waxay u sheegtay inay cadow badan leeyihiin way dhaqaaqday kadinka markay marayso ayay u xasuusatay way caruuray ku soo laabatay waxay tidhi hooy aniga cagahaygu waa caddaan oo waa aragtaan laakiin dacwadu waxay leedahay caga madow weydinku soo garaaci oo aniga ayay iska kaydhigay sidoo kalena anigu cod ayaan leeyahay jilicsan oo aan garan kartaan iyana codkeeda waa taqaanin way u sheegeen inay hooyadood ka ballan qaadeen dacwada albaabka ayaana xidheen in yar markay sii maqnaydna markiiba dacawo sheeda ka arkaysa ayaa caruuray soo dhaqaaqday albaabka ayay ku garaacday way garaacday haddana markaasay yidhaahdeen oo yaa tahay markaasay tidhi dacwad waa aniga waa hooyadiin waxay idin hooyadayo codkaas ma laha waanu naqaanaa codkeeda oo waa cod maqalka u roon dacwo ayaa tahay ee iska tag wayna isku wada sheegeen oo fahmeen in codku aanu kii hooyadood ahayn dacwana iyadu niyad tabsan oo marar dilacsan bay caruuray laabatay way fikirtay laakiin markiiba waxay ogaatay in qurub tabaashiira way ku wadatay gacanta haddii ay cunto uu codkeeda wax ka bedeli karo oo ay yeelan karto codkii laxda oo kale way soo laabatay oo albaabka ayay garaacday markaasay ku tiri sidii codkii hooyadeed waa hooyadiina iga furaa waxaan idin wadaa cuntadii macaanidii aan idin doonay markan way ku adkaatay runtii oo codku kii hooyadood ayuu u ekaa albaabka markay doonayeen inay ka furaan wayba dhaqaaqeen ayay mid xasuusatay dardaarankii hooyadood ee ahaa eega cidiyaheeda anigu waxaan leeyahay cidiya cad dacwana waxay leedahay cidiya madow markaasay eegeen oo ay arkeen mise waba cidiyihii dacwada ee madmadoobaa kadibna intay hal mar wada qayliyeen bay ku yidhaahdeen hooyadayo ma laha cidiya madmadow ee waxay leedahay cidiya cadcad adiguna dacwo ayaa tahay markaasay dacwo maroor dilaacday oo fikirtay kadibna waxay u tagtay nin moofa haysta rootida lagu dubo waxay ku tiri halow soo ma ogid inaan iska daayo cunooyinka hilibka oo haddaan calinta iyo rootiga cuno waxaad siisaa kiilo daqiiqa waan roodhi ka dubto way soo qaadatay kiilogii daqiiqdaha ujeeddaduse maaha inay daqiiq ka dubatee markay meel dhexa marayso ayay daqiiqdii isku wada shubtay lugaheedii oo dhanna ayay caddaysay waxayna u ekaysiisay kuwii ay laxdu lahayd
mar kale ayay albaabkii ku garaacday iyadoo codkii hooyadood matalaysa oo ay tidhi hooyadiin baan oo cunno macaaniday oo tee iga furaa markan codku waa isagii cidiyihii ayay carruurta eegeen oo waxay arkeen inay yihiin kuwa cadcad oo ah kii hooyadood oo kale markana carruurta way ku adkaatay waxayna u aqoonsadeen in hooyadood ay tahay maadaama cod iyo cidyaba isku ekaadeen albaabka ayay carruuray ka furtay maxaa dhacay dabeeto mar keliya ayay naxdin wareereen dhammaantood baa orday mase jirto meel ay maanta carruuray kaga badbaadi karaan mid kastana waxuu naftiisa isu dayay inuu isku qariyo halkuu isku qarin jiray mid ayaa miis hoosta ka galay mid kalena waxuu isku diday maro mid kale ayaa boskaska qashika lagu rito isku xidhay mid kalena khaanad kabadh ayuu hoosta ka soo xidhay mid kalena kabadhka dharka ayaa u galay mid kalena maryaha daha ayuu hoosta ka galay tii ugu yaraydna waxay ku booday muraayad anaxda saacad gidaar ku xidhan dacwadii way heshay mid kasta halkii uu ku jiray oo way daba socotay midna kama baxsan oo mid walba halkeedii ayay kala soo baxday carruuray ilaa kii yaraa ee galay gidaarka sare saacaddu ku xidhan tahay mooyaane dhammaantood ayay carruuray cuntay markaasay calooshu buuxsantay kadibna waxay go'aan ku gaadhay inay isugaba tagto iyada oo aan mid kalena doondoonin ilaa gaajaba ma haysee bannaanka markay sii socotay ayaa carruuray waxay go'aan ku gaadhay dacwo inay sii haddo cabaar ayay hurday dabeetana waxaa la tegtay hurdadii oo waayo calooshu buuxda ayaa ka tambadatay way hurday oo kamaday ilaa khuurada geedka ka baxaya ay caleemaha dhirtuba kariireen wayna sii wadatay hurdadeedii iyadoo caloosheedana carruuray ay ku jiraan 7 ka mid ah 6 maylood ee laxdu dhashay laxdi ayaa markay soo laabatay aragtay albaabkoodii oo furan markiiba way fahantay in maanta aan war wanaagsan guriga oolayn iyadoo qaylinaysa ayay orod isi sii daysay waxay gashay gurigii waxay aragtay waxa dhacay iyo in maanta ay maalin adag u tahay meel kasta ayaa carruuray baadhay magacyadii ilmaheeda ayay mid walba mid ugu yeedhay hebel hebel markaasaa cidina la hadli weyday oo meel walba ka eegtay oo mid walba qaylisay markaasba magacyadii oo dhan ka soo dhamaadeen ilaa ay gaadhay magaca ilmaheedii ugu yaraa oo markii uu maqlay in magaca ay soo kaliya ay hooyadii taqaano isagu ka dhex hadlay halkii isku qarinayay waxa uu yidhi hooyo maanta waxba dhacay wax weyn ayaa dhacay markii aad kadinka ka baxday ayay dacwo noo timi waxay hooyo soo marsatay daqiiq sidoo kalena codkaaga ayay yeelatay kadibna waxaanu moodnay inaad adiga tahay dhammaan hooyo way cuntay walaalo dhammaantood dabka ayay saarto mid kama noola markaas ayuu oohin xejisan kari waayey oo uu dhabanada ka ooyey hooyadii ayaa la ooyday oo murugada haysata darteed maanta iyaduna ayuu tahay carruuray maalin culus waxa uu ku tilmaamay halkay dacwo martay way soo socdeen markay meel dhex marayaan ayaa waxay isha ku dhufteen dacwo oo khoorinaysa si daruun u liba u khoorinaysa oo hurida markaasay hooyadii maroodla isha ayay la raacday oo eegtay oo ay ka fikirtay waxa ay samaynayso cabaar markii indhaha ku sii haysay ayay artay wax lama yabaana wax laga yaabay oo waxay aragtay carruusheedii oo dhaqdhaqaaqaysa waxay tidhi ha weli way nool yihiin oo macalooshii ku jiraan markiiba way fikirtay xal degdega waxay u dartay ilmaheedii inay ula soo cararto midi iyo irbad iyana intii waxay sii urursatay 6 dhagax oo waaweyn maqas iyo midina waxay u darsatay ilmaheedii yaraa waxay timi geedkii ay dacwo jiiftay markiiba waxay jeexday calooshii dacwo islama filaana ayaa waxaa ka soo booday 6 ka mid ah 7 carruurta ahaa ee laxdu dhashay ee ay dacwo caloosheeda gelisay oo midkoodna aanu carruuray nasiib wanaagooda waxba noqonin dhammaantood ayay farxad u wareegeen oo ay farxeen hooyadoodna way la farxday balada alla ka badbaadsay darteed ayay farxad dhabanada qabsadeen oo meel walba isku ooyeen haddana carruuray isla farxeen intaa wixii ka dambeeyena waxay samaysay laxdii caqliga badneed 6 ka mid ah dhagxaantii soo urursatay ayay dacwo caloosheedii ay jeexday u gelisay markaasay ku tashay oo uga dhigtay dacwana
hurdada haysay darteed iyo dheriga hore ka bartay xataa ma dareemin waxaa dhacay mar qura way isaga tegeen oo gurigoodii ayay ku laabteen markii ay cabbaar hurday ayay Dacwo aad u haraadari toostay culayska caloosha kaga jira ayay dareentay calool xanuun markaas ayay webiga u dhaqaaqday iyadoo yaaban sida caloosheedu maanta u ruxmayso oo aanay waxay weligeed aragtay haraad daran ayaa u dheeraaya waxay sidhi carruuray biyaha cab oo webiga ayay isa soo taagtay basay tidhi waxaan maanta hayaa darana calooshu weyna way la yaaban tahay oo kolba gacan ku taabatay biyaha ayay sidhi afka saar markii ay foorarsataba hare ayay u dhacdaa oo dhagxaanta ayaa jiita ilaa ay webigii madaxa ugula dhacday way galgalatay oo dabaala ayay istidhi laakiin dhagxaanta caloosha ugu jira ee daran ayaa u saamixi kari waayeen dabaalato markaasay Dacwo carruuray ku hafatay webigii ilaa markii ugu dambaysayna ay halkaas ku dhimatay oo aanay dib uga soo bixinin Dacwo waxaa carruuray laga yaabaa in sheekadan aad ka baratay si kasta oo aad u dadaasho in cadowgaagu uu kaa taag badin karo mar haddaad aragto qof cadowgiisu degayna kama dhigna in isagu uu dabaal yahay ee waxaa dhici karta khidadata aad haysato in ka badan in cadowgaagu haysto wixii dhacay inaad u damaha iyo in wixii markaa kula gudboon aad xalkeeda qabato hooyadeed waxay samaysay tallaabo ay markiiba kaga daba tegi karayso bal inay qabato waxay badbaadi karto carruurteeda inay badbaadiso allana waa ku guuleeyey mid ka mid a sheekooyinkii taxanaha ah oo ahaa sheekadii toddobaad ee aad ka dhegaysanayseen raadiyaha iyo carruuray intaa maantaan kasoo gabagabaynaynaa